الله naxariistay dilka taliyay qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole waxa ka soo baxay warar dheeraad ah iyadoo ay ka tacsiyeen guudaan shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaalida kuwa hadda ka tirsan hay'adaha dawladda iyo kuwii hore u soo qabtay xiriir kala duwan. SYL Somali TV waxa ay heshay xogta saddex dhacdo oo la xiriirta dilka taliyay Farxaan Qaroole. dhacdooyinkaasi waxa ay kala yihiin: 1. waxaa la ogaaday in marxuumka General Farxaan Maxamuud Qaroole oo lugeynaya markii haleeshay miino ahayd nooca dhulka la geliyo oo ay saraakiisha ammaanku sheegeen inay ahayd mid soo boodada ah. xogtu waxay sidoo kale tilmaamaysaa in taliyaha uu watay uu istaagay halkii uu ku dhintay isagoo ka hor geeridiisa dadkii la socda u sheegay in goobahan oo kale Al-Shabaab ay qaraxyo ku aasi karaan, balse daqiiqada kadib ayaa la maqlay dhawaaqa qarax culus iyadoo halkaasina uu ku geeriyooday marxuumka. 2. SYL Somali TV waxay ogaatay in qaraxa uu baabi'iyay jirka taliyaha, waxayna su'aal ka dhalatay sidee lagu ogaaday inuu halkaasi marayo taliye Qaroole maadaama askartii kale ee halkaasi martay aysan wax noqon. waxaa jira shaki aad u xooggan oo ah in qaraxa laga hagay meel aan ka fogeyn halka uu taliyaha ku dhintay. 3. qatarta ugu badan ee halkaasi ka jirta waxay ahayd in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay deegaanka Basra oo dhan ay biyo ku sii daayeen oo aysan gaadiid ku mari karin, waana sababta keentay in marxuumka uu ka tago gaarigiisii buruufta ah ee aan xabadu karin. General Farxaan Qaroole waxa uu u socday inuu soo qiimeeyo xaaladda goobihii laga qabsaday dagaalamayaasha Al-Shabaab maadaama qorshuhu ahaa in shalay gelikii dambe furmaha dagaalka ay booqdaan madax ka tirsan dawladda oo ku sugan degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. taliye Qaroole waxaa la filayaa in maanta lagu aaso magaalada Muqdisho, waxaana salaada janaasada lagula dukan doonaa masjidka Isbahaysiga oo u dhow madaxtooyada Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, xubno ka mid ah hay'adaha fulinta sharci dejinta iyo hay'adaha kale ee dawladda ayaa ka qayb gali doona aaska iyo janaasada taliyay booliiska gobolka Banaadir. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dalka ku soo laabtay shalay gelikii dambe, laakiin lama baahin soo laabashadiisa sababo la xiriira tacsida qaran ee jenaraal ka dhintay. Al-Shabaab oo sheegatay mas'uuliyadda dilkii General Farxaan Qaroole ayaa caddaysay in uga argudaysa dagaalamayaal badan oo kooxdaasi laga dilay oo ay ku jiraan xubno saraakiil ah. sidoo kale Al-Shabaab waxaa laga qabsaday dhul ballaaran oo ka mid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha dalka, waxaana kooxdan saaran culays badan oo uga yimid dhinaca dawladda kaasoo sababi kara inay beegsadaan rag badan oo muhiim ah. dawladda hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay sheegtay inay u argudi doonto halyeeyigii ka baxay booliiska Soomaaliya isla markaana ay qaadi doonaan tallaabooyin degdeg ah. mas'uuliyiinta hay'adaha ammaanka ee dawladda ayaa sheegay in Al-Shabaab cawaaqib xun ay ka dhaxli doonaan dilka General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole iyo dilka askar kale oo ka tirsan hay'adaha dawladda iyo xataa weeraradii lagu laayay dad shacab ah. taliyay booliiska gobolka Banaadir General Qaroole waxa uu ka mid noqonayaa kumanaan qof oo sifir sharci darro ah loogu dilay gudaha dalka, kuwaasoo aan dilkooda lagu samaynin baaris rasmi ah, sidoo kalena aysan jirin qof wax iska weydiisay. dadkaasi waxaa ka mid ah gudoomiyihii maamulka gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow, mas'uuliyiin kale oo ka tirsanaa dawladda hoose ee Xamar, dilkii wariye Cabdicasiis Afrika, xildhibaan Aamina iyo qaar kale oo badan.